waxaan rabaa inaan khudbad jeediyo haddaba waxaan ku hayaa 3 qodob oo ka caawinaya inaad khudbadda jeediso qodobka koowaad kalsooni dhameystiran isku qab dadka qaar ayaa ka sii walwala oo isweydiiya arimahan talow maxaa dhici doona xaalku soo noqon doona arma su'aalo adag lagu weydiiyaa hadaa qalad gasho maxaa dhici doona iyo arimo kale oo badan dhammaan weydiimahaas waxa ay diliyaan kalsoonidaada qofeed waxayna ka luminayaan aaminaadii ahayd ilaah ayaa wax kasta keeni kara adigoo kalsooni ku qaba ahaanshahaaga oo aaminsan inaad ka guulgaari doonto hawshaas iskeen goobta niyadaadana ku hayso in Allah la jiro markasta ku wanaagsan qodobka labaad si degan u furo bilowga khudbadda waa shayga ugu muhiimsan ee ay tahay inaad ilaashato sababtoo ah waxaad qabsanaysaa dadka oo aad soo jeedin ama waxaad iska lumin oo markaas u bilowdaba ay aqoonsan doonaan inay khudbadaada iyo adiguba tihiin bilaatayo iyo waxaan cuntamay taasina waxay ku keenaysaa in aad qasaarto sida awgeed waa in daqiiqadaha ugu horeeya ay noqdaan kuwa sida nuxur wanaagsan oo macaan marka aad khudbadda bilaabayso waa inaad degan tahay oo salaan iyo arimo kale oo xirfadaysan aad ku furtaa deganaashahaasi waxay ku horseedaysaa in aad kalsooni dheeraad hesho qodobka saddexaad dadka u sheeg waxa aad ka hadlayso dadka aad u sheegto mowduuca aad ka hadlayso waxa ay dhalinaysaa isku xil wanaagsan oo idin dhexmara adiga iyo dadka ku dhageysanaya ee hortaada fadhiya waa rajaynayaa in aad qodobadan wax badan aad ka faa'iiday fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo galino inta aynu isaga iimaanayna muuqaal kale waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh